السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وحن ربعنا هل كان واحد الله الاستغفار والدواء الناجح. استغفارتا والدواء لجوجوليستي أما هدان إلى هذا التداوي بالاستغفار أن سكت دوينه استغفارتا وأرن عجب بدن ويان استغفارta intayna isku daweynteeda horta u gelin baan rabaa wax yar inaan ka hormariyo tacriifkeeda maxay tahay al-istighfar waa طلب المغفرة من العزيز الغفار waa in ilaahi subxaanahu wa tacaala laga dalbo inuu dembigaaga u dhaafo ilaahayna subxaanahu wa tacaala wixii turunturaa iyo wixii gefa uu kaa dhaafo subxaanahu wa tacaala isaga gaafiru dambi ah allana subxaanahu wa tacaala uu ku asturo wixii tagayna aad ka qoomamooto go-aanna ku gaadha inaadan ku noqonaynin faraa'idii ilaahay ee dayacdayna aad hagaajiso ood maaragtay toosiso jirkaagii macaasida iyo xumaanta laga yaabo inuu ku raaxaystayna aad dhadhansiiso alamka iyo daacada xanuunkeeda yacni caawa inaad salaad u taagnaato inaad soomanaato ood gaajooto waa xanuun bay leedahay ayib satriga ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ku saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu qariyo haddaba ikhwaanii inaad astaqfirullah kayfiyaad badan oo istikfaarta loola yimaada baa jira asbaab bay leedahay marka horeba insaanku macsuum ma ah matid qof macsuuma dembigu kaa dhacayaa dabeecada basharka bini aadamkaana taa keenaysa acdaada aan leenahayna way badan yihiin naftu waa cadow qayb ka mid ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ina annafsa la ammaaratun bisuu nafta waa la qaybiyaa ilaa 7 qaybood bay u qaybsantaa mutma'ina ku jirto ammaara ku jirta oo xumaanta ku amraysaa ka mid a shaydaanka ayaa joogo isaguna cadow ah oo yatarabasu bil insaan dhufays kugu jiro raba inuu maaragtay halaaga kugu tuuro hawadaadii baa jirto qofka hawadiisa dad badan ayaa qaado meel xun ka tuuriyo jidka garab marisa adduunyadii baa halkan dhaldhalaalkeedii iyo umuuraheedii kula fadhida qafladii iyo halmaankii iyo futuurkii iyo daalkiiba iyaguna kuu joodo daacada ilaahay aad ka gaabinaysay intaasoo dhani asbaab bay noqonaysaa haddaba istikfaartu ayuha alaxibaa waxay gooni ku tahay dadka mu'miniinta ah oo bay gaar ku tahay markii ibraahim nabiyullaahi ibraahim aabbihii uu la doodeeyey waa kii aabbihii ku yidhi haddii aadan joojinin la arjumannaka dhagax baan kugu dilayaa wiilyahow isaguna wuxuu yidhi qaala salaamun calayka saastaqfiru laka rabbii inahu kaana bi xafiya istikfaar baan allah kuu weydiinayaa subxaana laakiin hada alistikfaar wuxuu ahaa baa la yidhaahdaa ibraahim damacan lihidaayati abiihi aabbihii inuu soo hanuuno ayuu sugayay falamaa tabayana lahu annahu caduwu lilaahi tabara'a minhu markay u caddaatay inuu aabbihii cadow yahayna wuu ka beri noqday oo wuu ka haray fii suurati tawba haddaba gebagabada qaybtan iyo istikfaartu inay mu'miniinta ku tahay waxaa ku tusinaysa rasuulka sala allahu calay wasalam markii adeerkii abu taalib uu xanuunsanayay waa kii lahaa yaa cam qul lii kalimatan uxaaju biha cinda allah hal kelima ii dheh laa ilaaha ila allahu anaa doodayo oo dhahaya adeerka islaamku ku dhintaye ii dheh buu leeyahay laakiin odaygaa lama waafajinin inuu kelimada u yidhaahdo waxaa soo degtay aayadda qur-aanka oo markuu rasuulku istikfaar uu u dalbaayay maa kaana linnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu uli qurba min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim marka haddii ay gaala yihiin oy naarta dadkeeda yihiin uma habboona baa la yidhi qofna inuu u dalbo marka istikfaartu waxay ku tahay khaas dadka mu'miniinta ayay ku tahay insha allahu tacaala qaybta soo socotaa baynu uga hadli doonaa haddii alla idmo sidaad isagu daaweyn lahayd jazakum allahu khayr baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu